kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaana waa janalka Fandoor Media alaab waxaan soo gudbinaa qisooyin jecel warkii ugu dambeeyay barnaamij xiiso leh haddaba maanta waxaad kala socotaa qisada jecel King Jaamaci Maxamed Alta jecel qolayo qabil maahi qafka lahayo qurxiya King Jaamaci Maxamed Alta ayaa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday waxaana hadalhayn weyn ay ka dhaliyeen baraha bulshada halkaas oo la marayay sawirro ay soo wada galeen labadan fanaan sheekadan ayaa daaraneed kadib markii xigta King Jaamaci ku tagtay dalkaas iyo Mareykanka show ay ku lahayd halkaas oo ku soo dhaweeyay fanaanka caanka ah ee Maxamed Alta xiriirkan ma ahan mid cusub balse waxa uu soo jiray muddo badan oo waxay wada socdeen 2018 waxayna ahaayeen saaxiibo dhow muuqaal ay soo wada duubeen King Jaamaci Maxamed Alta ayaa waxa uu ka nixiyay fanaanadii Hodan Cabdiraxmaan ee marqur waxay ku noqotay yaab iyo amakaag kadib markii xidigeedii hore ee la wareegtay King Jaamac amaanahan ayaa noqon doona lamaanaha uu shinaan doono fanka Soomaalida xidigta King Jaamac shooyaalkeeda 90% waxa aad taga dhalinyaro kuwaas oo doonaya inay arkaan King Jaamac waa xidig dhanka isteelka looga haray waxa ay shooyaalkeeda ku soo bandhigtaa qaab aad u sareysa waxaa la filayaa maalmaha soo socda King Jaamac iyo Maxamed Alta inay soo wada qaadaan hees bulshada ka yaamin doonta oo qabsan doonta social media sida la filayo Maxamed Alta ayaa muddooyinka ugu dambeysay saameyn badan ku lahayn social media kadib 2018 heestii Muna heestan Muna ayaa qabsatay baraha bulshada sanadii 2018 waxayna gaartay dhowr milyan waa heesta ugu caansan ee Maxamed Alta balse waxa uu soo qaaday heeso badan oo dhowr milyan gaaray Maxamed Alta ayaa markaan ku nasanaya jabkii ka soo gaaray Hodan Cabdiraxmaan kadib markii uu helay xidig ka shidan oo King Jaamac ayaana si rasmi ah ugu soo bandhigtay xiriirkooda jecel barta ay ku leedahay Instagram-ka iyadoo oo soo dhigtay post ay ku cadeynayso xiriirkooda jecel labadan xidig waa laba xidig oo isku qalma dhanka isteelka iyo da'da waa laba isku soo baxaya sida ay sheegayaan dad badan oo falanqeeya arrimaha jecelka xiriirkan jecel ee muddo badan soo jiilayeen xidigta King Jaamaci Maxamed Alta ayaa hadda waxa uu muuqda mid miro dhalay oo waxa ay ka rumeyn rabaan jecelkoodii waxaana la filayay isbuucyada soo socday in arooskooda uu ku dhaco carigaas iyo Mareykanka balse nasiib darro waa uu baaqday oo waxaa baajiyay coronavirus dartiis saaxiib halka nagala socotaan waa janalka Fandoor Media fadlan markii ku warsa tinta janalkeena soo boqoto subscribe-ta ka ilaa uun share gareey ala waxaan soo gudbinaa qisooyin jecel warkii ugu dambeysay barnaamij xiiso leh oo kuma santiin daawashadiina انت جهل عشق قلبي كل جرى وكالي